eedaysanaad oo dhalashadiisu Tanzanian ay tahay wuxuu ku dhashay Tanzania Soomaaliya waxa uu soo aaday sifo sharciya kuma soo gelin wuxuu soo maray tahriib wuxuu u soo aaday inta badan ajaanibta dalka timaado oo shabaab iyo argixisada la ka dirirta waa dad dambiye dalkoodii ka soo galay ama dambiye kale ka soo cararay sababta oo ah markii 12 sano uu joogay shabaab uu ka tirsanaa oo muddo inta leeg uu dagaal iyo ka qayb galay sida uu qiraalkiisa ku qiraayo waxa la yaab lahayd inuu yiri waxaan u bedelanayaa shabaab waan fikirkoodii inay diinta ku khaldan yihiin oo dhibaateynayaan dadka waan arkay waxaan u wareegayaa Daacish ma ahayn diin sax waxa uu yimid fikir diimeed oo sax sababtoo ah tana la adkaatay tukala muu ku laabta dalkiisa hadduu tan oo arkay wixii inaysan fikir diineed oo sax aysan oolin muu dalkiisa ku laab taas waxay muujinaysaa meel uu laabtaa inaysan jirin ee Soomaaliya hadba qaab shaati bedelashay uu ku joogo